Hadalkaygii waxaa naga soo dhex galay markii uu gaari madow imiday. Si degdeg ah waxaa ka soo degay laba nin oo waaweyn. Aabbahay ayaa ka furay albaabka, wayna galeen. Halkaanana ku joogna dibadda, ama kaagii cabsi badan kadib, waxaa si degdeg ah u soo baxay labadii nin oo aabbahay la socdo. Soo dhawaada, waxay ahayd inaan isku hin sheego, laakiin nasiib darro ma awoodo. Noloshaydii waxay ku jirtaa khatar. Waxaad ogaan doontaa sababta markaan idiin sheego. Aan bilowno. Waxaan ahay arday dhigta iskuulka. Wax dhibaato ah ima haysan. Waxaan u diyaar garoobay imtixaanka. Waxaan haystaa laba saaxiibaday oo ii dhow. Waxayna kala yihiin Xakiim iyo Raami. Waqti dheer. Waxaan qorsheynaynay inaan safar ugu baxno buuraha barafleyda ah. Si aan ugu ciyaarno ciyaaraha barafka lagu ciyaaro. Aan ku raaxaysano quruxda barafka. Laakiin riyadeedii waxay baaba'day maalinkan. Anigii saaxiibaday. Waxaan imaanay guriga. Waxaan ku sheekaysanaynay albaabka hortiisa. Waa inaad xidhataa dharka barafka. Jawiga aad ayuu qabow yahay halkaa. Ha welwelin. Hooyaday ayaa sii diyaarisay wax kasta. Waxaana soo dhex galay maashii iyo gaariga madow. Si degdeg ah, waxaa ka soo degay laba nin oo waaweyn. Waxay xidhnaayeen dhar madow. Waxayna u ekaayeen rag sirdoon ah. Mid ka mid ah ayaa ii soo dhowaaday. Si khaas ah ayuu wax ii weydiiyey. Siduu inay garanayo. Wuxuuna yidhi, aabbaha ma joogaa guriga? Haa, aabbahay guriga ayuu joogaa waqtigan oo kale. Waxay u dhaqaaqeen xagga albaabka wayna qaraaceen. Aabbahay ayaa ka furay albaabka. Guriga ayay galeen waxayna ku jireen daqiiqado. Dibadda ayaanu joognay, ama kaagii cabsi badan kadib. Waxaa si degdeg ah u soo baxay labadii nin oo ula socda aabbahay. Waxaan ku yidhi, aabbo maxaa dhacaya? Waayo raggani, halkeena tegaysaa? Ha welwelin wiilkaygiiyow. Shay kastaba si fiican ayay u dhici doonaan. Mar dhow ayaana soo noqonayaa. Aabbahay gaadhiga ayuu raacay wayna socdeen. Raami ayaa igu dhahay isagoo naxsan. Waxaa laga yaabaa inuu aabbahay yahay sirdoon. Xakiim ayaa igu jawaabay, maya. Miyaanad arkayn way kaxaysteen. Waxaa laga yaabaa inuu wax soo xaday. Si cadhaysan ayaan igu jawaabay. Doqomayahow maxaad ka sheegaysaan waalidkayga? Dambiile ma aha. Ha cadhoon kaliya waan kula talinaynaa. Anuu cadhaysan ayaan guriga tegay. Waxaana arkay hooyaday oo fadhida qolka fadhiga. Iyaduna sidoo kale may garanayn sababta uu aabbahay u raacay raggan. Galabtii aabbahay ayaa ku soo noqday guriga. Waxaan ka sugaynay inuu noo sharaxo. Waan fadhiisanay. Aabbahay ayaana hadalka bilaabay. Iga raali noqda. Waxaan socday anoo idiin sharaxin. Laakiin arrinku wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah. Waayo ragga aad raacday. Waxay ka socdeen xarunta sirdoonka. Waxaynu imaadeen inay baadhaan arrin muhiim ah. Maxay xarunta sirdoonka ah? Maxay kaa doonayaan adiga? Ma xasuusataa dilkii maamulaha ee bil ka hor? Haa. Miyuuna ahayn maamulahaagii isdilay? Haa, laakiin run ahaantii ismuu dilin. Maxaa tidhi? Oo askartayagaba caddeeyay inuu isdilay. Sababo la xidhiidha deyntii lagu yeeshay. Arrinku intaa uu ka weyn yahay. Waa la dilay. Aniguna waxaan ahay qofka kaliya ee daawanaya dalkiisa. Maxay? Sidee? Naxdin ayaa ka muuqatay wajiyadeeda. Askartu waxay sheegeen inaan kashifin arrinkan. Markhaatiyaduna waa mid sir ah. Tan labaad, waa inaad qofna u sheegin arrinkan labadiino. Muhiimaddu waxa weeyaan inay soo qabtaan dilaagii runta ahaa. Waxayna iga sugayaan inaan sheego wixii dhacay maxkamadda horteeda. Maxaad naftaada u gelisay dhibaatadan? Naftaada waxaad ku ridaysaa dhibaato weyn. Aabbahay ayaa kacay isagoo cadhaysan. Wuxuuna ku yidhi hooyaday, maxaad u doonaysaa inaan iskaga daayo? Isagoo ahaa saaxiibkayga ugu wanaagsan. Wuxuu ahaa ninkii siiyey shaqadan. Igana caawiyay inaan dhiso qoyskan. Abaal ayaan u hayaa ilaa aan dhimanayo. Kamana aamusi doono wixii aan arkay. Waxaanan caddayn doonaa dilaaga qofku yahay. Si degdeg ah, qolka ayuu ka baxay isagoo cadhaysan. Waxaan ku wareeray hadalkiisa. Muxuu ula jeedaa inuu dambiilo yahay mid aad u khatar ah? Aroortii markii aan tagayay iskuulka, waxaan si lama filaan oo la kulmay laba nin oo isugaya. Markaan soo baxay, mid ayaa ii soo dhowaaday wuxuuna yidhi, waxaa la noo idmay inaan ku ilaalino. Waxaan ku raacayaa iskuulka. Wuxuu ii tilmaamay inaan galo gaadhiga. Xagga dambe ayaan eegay si aan u arko aabbahay. Madaxa ayuu ii ruxayay isagoo ogol inaan raaco. Dhab ahaantii wuxuu ii raacay iskuulka. Xitaa wuxuu ii raacay gudaha ardayda horteeda. Wayna iga yaabanaayeen. Markaan soo gaadhay saaxiibaday,
waxay ahaayeen kuwo su'aalaha iga dayin. Wow, waxaad haystaa ilaaliye gaar ah. Waxaana kugu yidhi mar hore aabbahaa waa sirdoon. Haya noo sheeg maxaa dhacay. Iga raali noqda. Arrinku waa sir, inimana sheegi karo. Saaxiibaday way iga niyad jabeen. In yar ayaan ninkii eegay. Waxna ma odhan karayn. Wax dhagashadaydii ayaanta oo dhan wuu ila joogay meel kasta oo aan tago. Kadib guriga ayaan ku soo noqday. Markaan guriga soo galnay, waxaan arkay labadeedii waalid iyo mid ka mid ah shaqaalihii oo fadhiya. Anigayna i sugayeen. Aabbahay ayaa igu dhahay fadhiiso wiilkaygiiow. Waxaa jira arrin cusub oo soo baxay. Maanta arrin ayaa nooga yimid dadka naga sarreeya. Uu dhammaaday waqtigii ilaalada markhaatiga. Ta kale, waad ka tegaysiin gurigana kumana soo noqonaysiin. Waxaana tegaysiin magaalo cusub. Waa inaad soo urursataan dharkiina iyo alaabtiina inta muhiimka ah. Saacad kadib ayaan baxaynaa. Anigoo yaaban ayaan yidhi, maxay? Ma waxaad uga jeedaa inaan saaxiibaday arkay mar kale? Iskoolkii, xaafadahaygii, safarkii aan ku tegay buuraha barafleyda ah ee aan intaa oo dhan sugayay. Miyaan ka tegayaa intaa oo dhan? Maya, kama tegayo halkan. Ninkii ayaa igu jawaabay cod qaylaha. Halkan ma ciyaarayno. Arrinku waa dhimasho iyo noolaasho. Haddii aad halkan sii joogtaan waad dhiman doontaan idinkoo dhan ayaama gudaheed. Xal kale ma hayno. Ugu dambeyntii go'aankii idinku idin yaala. Waxaan idin siinaynaa 1 saac. Kadib waxaad noo sheegaysaan go'aankiina ugu dambeysta ah. Way baxeen labadii nin. Hooyaday ayaa eegaysay aabbahay eegmo cadho leh, iyadoo dhahaysa, waa maxay musiibadan aadna gelisay? Waxaa dhan waxa weeyaan intaad cadaalad u raadinayso saaxiibkaagii dhintay. Maxaan faa'iidnay hadda? Waa inaan baxnaa oo raacnaa iyaga. Waan habsaanay intii aan ka hadlaynay arrinkan. Wayna dilayaan xitaa haddii aanan marag furin. Meesha ayaan ku qalalay. Noloshaydii hal mar ayay dhinac kale isku rogtay. Saacad kadib, 3deedii waxaan ka soo baxnay guriga. Si uu aabbahay u yidhaahdo waan idin raacaynaa. Madaxa ayuu lulay. Telefoon ayuu daqiiqada ku hadlay. In yar kadib, gaadhi madow ayaa soo istaagay guriga hortiisa. Kadib wuxuu naga dalbaday inaan korno. Ka hor intaan korin, waxaan naxay markaan arkay qof naga soo daawanaya meel naga fog. Wuxuu saarnaa mooto weyn. Garabkana wax ayaa kaga sawirnaa. Waxaan ka cabsaday inaan eego isaga. Shaki ayaa i galay. Shaqaalihii ayaan eegay. Ka hor intaan u sheegan wixii aan arkay. Waxaan arkay isagoo meesha ka soconaya si degdeg ah. Saarana mootadiisii. Ayuu ahaa qofkani. Waana ayo dilaaga muhiimka ah oo aabbahay rabo inuu ku markhaati furo. Sidayna noqon doontaa noloshayda cusubi. Waxaasoo dhan waxaan ku ogaan doonaa qaybta soo socota ee sheekada. Haddii aad rabtaan qaybta labaad, like saara fiidiyoga. Commentiga nagula wadaag waxaad filayso. Qaybta labaad ayaan is arki doonaa. Bye bye.